furiinkana wuxuu ahaa buu yiri waa la igu khasbay oo gabadha waxay tiri mar waxay tiri anoo qaawan baan bixi wayna sameyn kartay oo dabeecadeeda waan aqaanaa way sameynaysaa haddaad i furi weyso anoo qaawan baan baxayaa anoo arrinkaa ka cabsanaya dalqad iga dhacday mar kalena waxay tiri facebookan ku soo qori ninkayga cudur xun buu qabaa sawirkaadana waan soo dhigi markaana dalqad kale iga dhacday labada jeer ba aniga oo ma jeedin maxaan sameeyaa qofka ninkan xaaskayga aan furay wali laba jeer marna anoo qaawan baan bixi bay tiri haddaan dalqadayda isiin marna cudurro xun oo dilaa uu qabaa baan dhihi sawirkaaga facebook inaan soo dhigo dalqadaha ma dhacaan maya labadaa baawil ikraah waayo midda la yidhi qofka waan ku ceebayn oo cudurkaa xun buu qabaa baan dhihi oo facebook baan ku soo dhigi dharbaaxa iyo toorey la geliyaa dhaanta hadal cayood ku tiri iyo gacan aad u qaaday oo in yar aragtayna facebook la dhigoo afarta daafood ee caalamka laga ogaaday inkasta intii taqiina bay aragtahay dhibkuu soo gaarsiinayo baa ka badan saas darteed dee facebookan ku soo dhigi beentaana waan kaa sheegi ma sawirkaagana waan raacin cid kastoo berri aragtay kii cudurka qabay way dhahayaan sooma baawul ikraah wey tan iyadoo ay isku samaynayso ikraah miyaa waxay culimmadeennu ka hadlaan hadduu qofku yidhaahdo waan isdili ama halkaasan iska soo tuuri haddii kale warqadaydiisii ama dab baan isqabadsiin waxay ku xihan tahay adigu ikraaha lagu ikraahaye qof kale aan wax yeeli ma noqon kartaa waxay la mid tahay aabbahaa baan dili hooyadaa baan dili walaalkaa baan dili ama qofkaa muslimkaan dili ikraah ma noqon kartaa haa noocan haddaba iyadu anaa isdili hadday dabeecaddaa suuragal ka tahay baabul ikraah weeye wey alikraah aladabi kay fuqahadu u yaqaanaan wey labadaa dalqadood midna dhici maayaan hadday haalibu dannigu say u badan tahay inay sidaas samayn ay tahay qof sameeyana dabeecaddeedu ay tahay waxaan silayaa qofka leh qawanaan baan ku bixi isan qofkaa maskaxaan fayoobay baan u malaynaya waayo waxa uu samaynayaa qofkaa keliya wax ma yeelaye inta isaga uu isyeelayaa ka badan inaad qawanaan ku baxdo oo ninkii berri uu yidhaahdo warwaama iska furoo dhaqan xumaan u furay dhibku yuu ku harayaayo baaqi ku noqonaya wax isceebay kooba sooyada maaha qofkaan isan maskaxaan fayoobeyn iyo inuu qofkan kale ku og yahay halkaa hadduu gaaray inuu soo dabci oo isku hallayn u leeyahay labada waa dhici kartaa baan u malaynayaa